farxad weyn bay tahay inaan isugu nimaadno maanta 29 Oktoobar oo ku beegan 12ka Rabiicul Awwal bil mawlidka inaynu isugu nimaadno munaasabadan oo ka kooban laba heer. waa marka koowaad waxaynu isugu nimid munaasabad dib u dhis loogu sameeyo gurigii hooyooyinka oo aynu ku dhisayno barnaamijka isxilqaan hal abuurkiisa fikirkiisa asteyntiisa meelmarintiisa iyo daahfurkiisaba waxa lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. waa weydeen isagoo qoraal dokumenta qorshe ah ayuu golaha shacabka ka soo bandhigay 2018 wuu shaqeeyay wuu hirgalay gacmaheennu meelihii taariikhiga ahaa badankooda ku dhisnay oo ay ka mid tahay tiyaatarka madxafka maktabadda taalooyinka stadium Muqdisho. maantana waxaynu daahfurnay oo aynu dhagax dhigaynaa gurigii hooyooyinka. marka isxilqaan iyo isku tashi iyo inaynu gacmaheenna wax ku qabsano ayaynu dalkeenna dib ugu dhisan karnaa. arrinta labaad waa tacsida iyo xuska maamo Zainab Xaaji Cali Baxsan oo ah haliyey Soomaaliyeed halgamaa abwaaniinta iyo fanaaniinta inooga sheekeynayaan taariikhdeeda xilli dheer ku soo biirtay iyadoo askari fanaana haddana heesaa halgamaa kaga soo qayb qaadatay halgankii gobonnimadoonka Soomaaliyeed inay suugaan iyo fan iyo cabir iyo dhiirigelin ciidamada iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ku kordhiso kaga qayb qaadato aynu suugaantii heesihii iyo fankii ay ka tagtay iyo oo dhiiga dhaqaajinaya aynu inaguba ka wada dheregsanahay. waxaanu marka ugu horeysa Ilaahay uga baryaynaa naxariistii janno. waxaanu mar labaad leenahay samir iyo iimaan dhammaan shacwinaha Soomaaliyeed guud ahaan qoyskii iyo qaraabadii ay ka geeriyootayna Ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo. Ilaahay ha u naxariisto. madaxweynuhu isagoo ay ku weyn tahay xuska halyeeyada Soomaaliyeed waxa uu go'aamiyay in gurigan loogu magac daro fikradana ku soo saaray maanta laga bilaabo xarunta hooyo Baxsan haweenweynaha Soomaaliyeed. waa dhisaynaa waan dhamaystiraynaa waynu insha Allah bilicdii iyo muhiimadii ay lahaan jirtay ee magaaladana ku lahayd iyadoo ah iyo qaranka Soomaaliyeed ayaynu dhamayn doonaa. maanta laga bilaabana gurigan waxa uu ku magacaaban yahay hooyo Baxsan. arrinta labaad aan doonayay inaan ka hadlaa waxa weeye madaxweynuhu waa ka warqabay ilaa markii ay xanuunsanaysay ilaa caafimaadkeedii iyo daryeelkeedii si dhow buu ula socday sida uu ula saaxiib yahay dhammaantoodba abwaaniinta iyo halabuurka Soomaaliyeed ha ahaato waaberi ha ahaato hobolada kale iyo abwaaniinta ha ahaato halgamaaga suugaanta ku halgama. marka waxaanu leenahay